السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قبدي ولا الملك استأجبتان عرور عرول عيد والبقونة داواني سوكو حيران odaygii masaakiinkii mayamuga ahaa halkee ku sugannahay weli waxaan ku dhex jirnaa Paris iyo Olombikada aan soo aadnay maanta iyo another vlog tareenkaana fuulaynaa waxaan aadaynaa beerti dheerayd ee caanka ay ku ahayd Paris Eiffel Tower iyo sheekooyinka Olombikada ku saabsan maanta waxaan iska dhex wareegaynaa birtaan dhexdeeda waxaan filmaanka daawado waxaan telefishinka arko odaygii mayamuga ah finally wuxuu dhex taagan yahay ama u socdaa oo ku sii socdaa oo dhex istaagi doonaa birti dheerayd oo aan rabno inaan maxato igula soo baashaashiin rabo inaan soo arko another experience another maxato adventure so waa iska soo dalxiisaynaa waa iska baashaalaynaa insha Allah tacaala idinkana inaan maxato aan isla wareegno ila wareegtiin birta aan soo dhex wareegno kulay aan isha macalina soo wada aragno odayga mayamuga la dalxiistiin iyo sheekooyinka Olombikada ku saabsan maxaan ka ognahay Soomaalida la mari doonaa maxato ku turkitaan yariiso iska jirto laakiin insha Allah tacaala waxaan jeclahay in magaceena iyo calankeena uu ka dhex muuqan doono hadduu Ilaahay yiraahdo taasaan ku hanweynahay xogta aan hayo oo aan raadiyey waxyaalo kale ka sheekaysan doonaa birta markaan tagno birti dheer aan fuuli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan oday jakiya iska dhigo birta waxay leedahay wiish lagu fuula ama alibeerisa u taqaanid tikidhada way kala duwan yihiin soo aniga marka maadaama aan raadinayo inaan magaaladii kor ka arko inaan maxato indhaha quruxda badan leh aan wax ku daawano hadduu Ilaahay yiraahdo Ilaahayna si inaan maxato vlog oo noo qurux badnaado hadduu Ilaahay yiraahdo marka sidaas darteed talada dadka aan soo qaatay magaalada degan kulli waxa la iigu sheegay in jaranjarada ay noqonayso mid video hada duubanayso ama arabto ina asxaabtaada wax qurux badan la tusto ina jaranjarada doorato kulli odayga waxa sugay daal iyo naftur badan marka hada aragtaan anoo xurtoonayo odayga jaranjarada fuulay la yaabiya marka 60 jirna waa leeyahay marka almiitan waa qaba wiil yarin soo ahay marka alla la yaabin insha Allah taala let's go birta aad doona hadduu Ilaahay yiraahdo iyo another vlog so soo raacno waxaad ku codsanaa please videogan ina meel fog gaarsiisin share gareysin let's go waxay leedahay elevator la raacayo si first floor iyo second floor aad ku tagto ba aniga elevatorka waxaan rabaa view ina helo elevatorka cariiri waaye so in order to get a nice view iyo Olympicadaas meelahaas inaad ku duubtaa rabaa so I wanna buy stairs sanjaranjaro ugu socdo so marka I think I can buy here for stairs stand still. Pardon, where can I buy a ticket for stairs? In there? All right, thank you. So I'm just gonna buy a ticket. So it says ticket is there. So I want to go to the stairs. Jimmy, let's go. So ticket ka soo goosana. I see you soon, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Odayga waa yeelkii jaranjaradii soo goostay. We are the tower. Horta wax badan birtaan filmaanta waa ka arkay videoyada waa ka arkay maanta odayga mayamuga waa saaran yahay birta korkeedu saaran yahay I hope ina ila dalxiistaan oo ila fahantaan so naftuurna waa dhaca jaranjaro la soo toortay odayga wuxuu sir weli dhalinyarada taa jaranjaro fuuli kartaa laakiin meesha ka dhacaysa arkayna already naftuurkii bilaabay so you can see look at that Olympic meelay lagu qabanayo marka kor tagna arki doona si fiican so is there
jaranjarada waxaa usoo doortoo kale tacriiri badan ma laha dadka si fiican kuugu dhowo laakiin second floor markii la tago dad badan is arkeenaa so Eiffel Tower magaceeda oon karaynin waa saaranahay adinkiina waa ila saarantihiin saan filaayo marka waxaa iloobay please liga xasdin hala share gareeyo hala subscribe gareeyo gambalaalkeena hala furto odayga community-ga hala la dhiso so wax yar oo tiba intaa hoos joogay maana duubin way iga hoos baxda laakiin hope inaan ku noqdo waxaa soo bartay laba wiil oo ku soo jeedo Uzbekistan waxay soo siiyeen cheese oo sawir ay iga qaadeen so marka is this cheese sawirkana meesha soo dhigi doona sawir ay iga qaadeen oo xayeysiina number 1 the best cheese Uzbekistan gacanta ku haystaa waxay kala ballan qaadeen xiriirka kala qaadan telefonkiisa wuxuu ugu dhahay haddii aa waddankeena imaato meelo badan oo kusoo tusaa qorshahan waa igu jiraa inaan Uzbekistan marcagayga dhigo waddan aad u fiican oo muslina neefta badan haddaa aragtiin odayga jaranjaro u fuulaya lala yaabin so marka inuu saa u jeediin meelahaasoo dhan meelihii olombigada lagu qabanayo waaye the only thing I know in meeshaas xagga xigto waxaa idinka tusi doonaa hadhow second floor markaa tago in lagu qabanayo volleyballka beach volleyball so marka I want to find out site-ka webiga aan ka arkayna even though second floor wadna xanuun u arko aaditaan so this downstairs so sport waxaan helay ligu baadagareynayna u malaynaa so let me go yeah والله حرق so meeshaan isdhahay waa xiran tahay let me zoom to closer I just want to show you guys webiga so if you see webiga waa kaas let me put a little bit down you see that webiga waa kaas meesha ceremony openka lagu sameynayo is some closer to tower so
meesha kuraasta ku dheganaayeen haddaata arkeen si qaladaan u fahmay so intaa laga imaanaa webiga dhankaanu ka imaanaa dhankaaba waa laga imaan karaa laakiin I think doomanka ay raacayaan dadka waa kuwaas meesha yaallo so doomankana la soo saaraa waddan walbo iyagoo oo soo aadayo dhanka venue lagu qabanayo so marka ma ka fogo waa kuraasta meesha la fadhiyo madaxda ay imaanayso I think Sona Air is why expensive u tahay meesha madaxda imaanayso waaye meeshan waa dabeel badan tahay saaxiibo aad u dabeel badan tahay I hope windiga in iga xiran tahay so let me webiga waa aragteena u malaynaa webiga dhankaanu kasoo maxato labada dhinac inuu dhinacan kasoo bilowdo laakiin kulay webiga soo u socdo webigeena aan naqaano Soomaaliya kale ma socdo marka anyway labada dhinac ka imaanayeen moogi so marka meesha kuraasta ay ku yaaleen ay tusaayay oo maxato doomaha korkooda kuraasta lagu sameeyay meesha dadka ay fadhiisan doonaan dadkana doomanay ku imaan doonaan marka saas ayaa ceremony-ga uu ku furmayaa waa hindiso cusub waa maxato nooc cusub oo ugu horeyso even though dadka ay dhahayaan maxato waagi Greega lagu qabanayaba waxa ay sameysay in ay Greega waxay caan ku tahay meelo qaarkood maxato sida meelihii Romanka oo kaleeto in ay maxato venue-da qaarkood ay ku sameysay laakiin Greega ceremony-geeda waxaa lagu furay stadium Paris waxay kaga duwan tahay stadium lagu furay midda ay Paris ku duwan tahay waxay tahay there is no stadium garoon ma lagu furay garoon ma la iskugu imaanayo so dadka ka soo qayb galay doomankaas la soo saaraa meeshan oo webiga geeskiisa kuraas lagu sameeyay oo A iyo B iyo C iyo D loo kala qaybiyay meeshaas dadka tigidhka goostay ay imaan doonaan meeshaas maxato ay dadka soo mari doonaan meel u dhow oo la istaagi karo oo laga daawo karo ma jirta I think wadooyinka geesihiisa but that's what I'm figure out in maxato awood u heli karno inaan gees inta istaagno aan maxato at least aragno mar labaad marka waxaan ku soo celinaa reasonka aan u imaaday waxay tahay dalxiis iyo ina Olympicada experience-geeda aan ka qayb galo muhiimadda hi how you say hi hi is the France it's not France bonjour bonjour Mr. Capitan muhiimadda ama reasonka ugu weyn oo imaaday waxay tahay inaan support gareeyo dalkayga Soomaaliyeed ogaanana wax ka soo qayb galayo sanadkan ama cidina matalayso however waa ogtihiin Olympicada ugu dambeeyay caabta iyo dhibaatooyinkii naga soo raacay ma rabo inaan gabadha walaashay aan ku digto ama ma iga aha inaan ku diganayo laakiin markii maanta Olympic la taagan yahay taariikhda way is xusaysaa oo waxay isku xusaysaa waxay tahay Olympicada waqtigeedii la gaaray waxa la soo xasuusanaa dhacdooyinkii Olympicadii hore la soo dhacay dhacdooyinkii ka mid ah oo dhacayna waxay ahaayeen in aan haysano rekoorka ugu weyn ama one of the rekoorada aan la jibi karin gabadhii ugu horeysay ee 100 mitir ordo the fast waxaa haysato gabadha Jamaicanka magaceedu waa iga maqan yahay waxay ku orday 12 something maxato gabadheena Soomaaliyeed ee anaga noo orday ee 100 mitir ordana waxay haysataa the slowest 100 meter la ordo Olympic time ama whatever in the world any orod oo 100 ah oo la ordo ama any venue la qabto ama any maxato tartan la qabto oo 100 mitir waxaa haysanaa the slowest maxato record
oo ever dhacay. So marka gabadheena waxay ku oroday 12 it was the 15 minute I think was 12 something. So marka 12 minute ma ahayd ma aqaan, but anyway slow istaaysta. Marka let me back to my point. aan ku soo noqdo pointigeyga wuxuu yahay waxaan u imaanay inaan ogaano sorry dabeela ugu dhacayso. aan ku soo noqdo pointigeyga wuxuu yahay muhiimadda aan u imaano waxay tahay in aan ogaano cidda nooga qayb galayso, ciddana matalayso, yaa noo ordaya sanadkan, yaa Soomaaliya ka socdo, xiriirka isboortiga Soomaaliya yay soo dirayaan, yaa imaan doono. dad badan aan la hadlay oo isboortiga ka shaqeeyo iyo kuwa dhegdhegeeyaba kuwa xiriirka isboortiga Soomaaliyeed la shaqeeyo waxay ii sheegeen in khilaaf weyn uu jiro sanadkan, in dhacdadii dhacday gabadha hadda aan ka sheekeynayay caabta noo soo jiitay darteed in xiriirka iyo dowladda ay isku raaceen sanadkan haddii uun cid diyaarsan ay jirin ama cid awood la aysan jirin habal iska daayo. su'aalo kaleetaa soo baxay oo la dhahayo haddii olombigadan laga baaqdo maxaa dhici karo. waxaa dhici karo olombiga xigo in aadan ka qayb galin ama disqualified inaad ka qayb galin oo lagaa tirtiro. So however guddiga sida aan wararka soo helnay xiriirka kubadda ama xiriirka isboortiga Soomaaliyeed ama guddoomiyaha xiriirka isboortiga Soomaaliyeed wuxuu joogaa Faransa caawo shalay u imaaday. waxaan isku dayna maanta inaan la kulanno ama u tagno way noo suurtageli weysay maadaama uu madax la kulmayo ceremoniga ee berrita tahay ama furitaanka uu berrita yahay aad ay u adag tahay. So berri wixii ka dambeeyo insha Allah waa la kulmi doonaa. waxaan rabnaa inaan ogaano ilaa caawo ilaa berrito yaana matalayo xafladda furitaanka ma ka qayb gali doonaa. waxyaalaha aniga calaamad-su'aadka iga saaran waxay tahay xafladaha furitaanka ma ka qayb gali doonaa, Soomaaliya ma ka qayb gali doontaa, yaa ka socdo. Okay, war dheer ka bacdii yaan warkeeda ku dheeraynin waxaan soo ogaaday oo la ii sheegay ilaa hadda aan hubin in gabar Soomaaliyeed oo ay matalayso xulka ama waddanka Soomaaliyeed ay ka imaatay dalka Mareykanka oo ay Soomaaliya matali doonto. maxay kaga qayb galaysaa? calaamad su'aala weli saaran. ma orod baa ma any kind of sportia maxay tahay ilaa hadda ma caddo. waxaa kaleeto noola sheegay in wiil Soomaaliyeed asagana oo ka imaanaya dalka UK asagana waxa uu ku matalayo Soomaaliya even though inay orod tahay aan u badinayo asagana ma caddo. marka ilaa hadda calaamad su'aala saaran yaa Soomaaliya ka socdo, yaa matali doono. kuraasta yellowga ah iyo kuraasta buluugga ah oo badda webiga geesihiisa ku samaysan dabeel waa lana dhuxuso. marka I don't know that wind inay maqlaysiin. so haddii ay dhici weyso codaan kor saaraa, marka haddii la maqli waayo nasiibkaa qaba. so meesha la imaan doono meeshaan waaye, meesha ceremoniga ka dhacayo meeshaan waaye, meesha dabka laga shidi doono meeshaan waaye. ba question sidee u dhici doontaa ilaa hadda isweydiinaa. so dadka markay doomaha ku imaadaan I don't know ma waxaa la dhisi doonaa buundo oo webiga looga soo baxayo. ba sidaa hadalka ku maqlay dadka tigidhada goosanayo meeshaas kuraastaas geesaha webiga ku samaysan ilaa xaggaas sii jirta ayaa lagu sameeyaa maxay fadhiisanayaan. meeshaana meesha ay dadka imaan doonaan which is for me ay la yar tahay I don't know si maxaato intaasoo waddan ee meeshaan u qaadi karto ilaa hadda waa iga dhaadhici laadahay. so but for me that's the information ka aan helay in wareysi looba ti meeshaan waxaa taabato. so this is one of them. You see, this is one of them. I don't want to go into the shop. so meeshaas waxaa lagu gadaa funaanado oo calaamadii Eiffel Towerka ay ku sawiran tahay. meeshaan waxaa ka taaban karta malaha. marka
alaabteeda qaali waaye so marka qofka aanan awoodeeda lahayn waxaan kula tali lahaa inuu just Sorry. that lady she wanna in my camera thank you pointiga haddaadan awood u lahayn forget about it just keliya inaa maxaato ku dalxiisto cabitaanka iyo biyaha iyo waxaas lagama celinayo so gudaha la soo geli kartaa but I buy a bottle of water is €5 it's not easy so I'm back to the square one so let me find out for the trail so so waxaa kaleeto iloobi inaan idiin sheego haddii maxaato aad rabto inaad tuur qaadato kaleeto raggan historiga dhanay kaaga sheekeynayaan waqtiga Eiffel Towerka la sameeyey waqtiga oo maxaato la dhisay cidda dhistay so haddaa u baahan tahay in information fiican lagaa siiyo by the way it's going to English so marka if you not understand English so it's not point in a tour qaadatid so anaga Soomaaliyan nahay hadii aad Soomaali tahay inda adeegan wadanaa soo marka shaqo ma ku leeyin I hope roobka inuu istaagay so let me go to my tour roobka waa istaagay so marka I'm just gonna keep doing it what I'm doing it so marka haddii aad u baahnayn haddii luqadda ingiriiska ku hadasho kaleeto so aad fahmayso people states oo kaleeto for example people UK oo kaleeto and even though if you speak English so waa qaadan kartaa oo aad rabto inaad ogaato taariikhda ay ku dhisan tahay iyo cidda dhistay waqtiga la dhisay how long dhisan tahay so waa astaan Paris caan ku ah waa astaan da'weyn leh marka waqti dheer ay dhisan tahay so marka all that information haddaad rabtid inaad ogaatid so waa samayn kartaa I think inaan gabagabada soo gaarnay qabow roob dabeel wax kastaa socdo marka insha Allah tacaala we can end soon not now so this floor which is the second floor third floor is all the way up and that one is extra money and I don't like it so marka it's too small marka wax muhiim ku soo kordhinayo malaha so most meelaha ugu quruxda badan waa second floor iyo first floor so marka haddii second floor imaato you sit high enough maxaato muhiimku ma aha so haddaad jeceshaa magaalada inaad close ku soo noqotona baalkaana qaadanaya So I'm trying in an arko isu dhaweyna fucking 2020 la isu baxay ayla faax
是肥的，看见那刚红的是吧？ السلام عليكم. I think waxaan soo gaarnay in aan dhammaadka barnaamijkeena oo maanta aan Eiffel Tower ku imaanay. Haddii uu barnaamijkan ku soo gaaro waxaan ka codsanaynaa inaad noo share garayso, noo subscribe garayso, waa dhii waaye. Run ahaantii inta badan waan ka hadalnay sidaan jecesaan u malaynayo Soomaali sanadkan wax matalayo ma ogin. Run ahaantii xiriirka dad la shaqeeyo u dhow markaa la kulanana waxay nagu dhahan waxaa imaanayso gabar ka imaanaysa America oo waxay ku ordaysa iyo wax ay dheelaysa aan la aqoonin ilaa hadda calaamad su'aal saaran iyo waxa kale oo nolol sheegay inuu imaanayo wiil asagana ka imaanayo dalka Ingiriiska isagana calaamad su'aal uu saaran yahay sportiga nooca uu dheelaya aan la aqoonin ma ordi doonaa ma dabaalan doonaa volleyball ma dheelaa basketball ma dheelaa ma boodi doonaa ilaa hadda lama yaqaano. Run ahaantii waxaa jooga xiriirka sportiga gudoomiyahooda Soomaaliyeed iyo wafdi la socdo oo ka qayb galaya furitaanka ceremony-ga ama xafladda habeen dambe dhici doonto. waxaa kaleeto noola sheegay in uu la kulmi doono Soomaalida ama jaaliyadda degan dalka Faransiiska maalintii taa lama yaqaano. Run ahaantii kulay sanadkan waxaa moodaa xiriirka sportiga Soomaaliya ama xiriirka Olombikada Soomaaliya inay xoogaa ceebtii soo gaartay Olombikadii la soo dhaafay ay xoogaa ka dhuumanayaan dadaal badanna ay sameeyeen si dadkii la iska soo wadi jira aan loo soo wadin dad aan la soo diyaarin inaan la keenin ayaa go'aan lagu qaatay. Labadan qofood ilaa hadda inay run tahay inay been tahay ma garanayno, laakiin waxaa noola sheegay in laba qofood imaanayso. waxaa soo haray ceremony-ga ama xafladda furitaanka oo lagu qabanayo webiga. taas ayadana waxaa calaamad su'aal ka saaran yahay in ay jirto in ay ka qayb galayaan Soomaalida ama ciddi matalayso xafladda ceremony-ga ama xafladda furitaanka Olombikada Paris lagu qabanayo 2024 berrito Jimcaha la qaban doono. calankeena ma ka soo dhex muuqan doonaa ilaa hadda calaamad su'aal saaran. So far waxaa helna ma laha. Soomaaliya la xiriiray xiriirka sportiga ama xiriirka Olombikada ka shaqeeya la xiriiray ilaa hadda in hadal aan sax ah la siinayna oo ag tahay way jirtaa qaar ku dhahay qaarna waxa ku dhahay wax soo baxay ma laha. marka ilaa hadda ma ogin cid soo baxday cid kaleeto. waxaan filayaa inaan maanta wareegeena iyo magaalada Paris iyo Eiffel Tower oo intaan ugu ekaanayo inta barnaamijka kanoo kaleeto ku kulmi doono oo aan halkii meemo oo idin la peace out. Cheers.